السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan isleer eegaynaa gumaysiga ay nagu hayaan heer galbeedku ee ay ku soo qaadeen muslimiinta haday ahaato xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag diinba. Haddaba aynu isleegno xagga dhaqaalaha laguma ogola. Xitaa wax kale day waxa lagu yiri findicilka u yaro annaga ku soo saarayna xagga siyaasadana annaga ku sameynayna xagga cilmiga annaga ku dajinayna wax alle waxaad baranayso dhan diintana tayada qaado. adigu kaliya waxaad noqotaa qof la haysta oo wax kasta loo maamulo. haddaba muslimiintu waxa loo adeegsaday sidii saddexdii dibi ee waliba ximaalanka mid meel ku cunayay intuu maalamadu sheekeeyo. haddaba maanta cid kaga warrami mayso sida muslimiinta maanta dhibta lagu hayo si sare iyo si hooseba. haddaba waxa laga yaabaa inaad la yaaban tahay warnigu muxuu ka hadlayaa. haddaba walaal fiidigu wuxuu ka hadlayaa xagga dhaqaalaha muslimiinta iyo dhirta iyo waxbeeridda. waxa la soo wariyaa gabadh ka timid xagga Mareykankii xagga oo la socotay hay'ad ayaa wax wadi qolo hay'ada dabadna waxay u wadeen sababta u weyn waxa ahayd inay soo nabaad guriyaan geed la dhaho galool oo inta badan ka baxa wadamada Soomaalida. waxayna ku yiraahdeen gabadhaasina raac geedkaana soo tus. geedkuna waxa uu ahaa galool, geedkaasina waa daw. waxayna doonayeen inay geedka nabaad guriyaan oo ay sunku beeraan ay wadankana ka kaxayaan. haddaba gaaladu waa kuwa sida dhibta inoogu haya ee dhirteeni iyo wax kasta aan lahaynba doonayeen in nabaad guriyaan wax kasta ay gacanta kugu qabtaan iyagu ay ku maamulaan maalinba iyar ay ku siiyaan waxaaga intii ku kala googooyaan ay yarna ku tuuraan inta kalena ayagu adduunka ugu taliyaan. dhacdo kale oo xaqiiqana waxa laga soo wariyaa wiil ayaa wax u aaday wadamada gaalada isagoo waqti hore u tahriibay dabadna odayba is wareysteen. odaygu baa ku yiri inankaygiyow iga waran wadankii Ilaahay. inankii baa intuu yaabay waxa uu yiri waa adeerow wadan kasta ma Ilaahay lahayn wadan gaar uu Ilaahay leeyahay. dabadna waxa uu ku yiri ma wadanka Soomaaliyeed wadan gaara si gaaraan hawl weyn u leeyahay waayo waqti hore 1900 ayaan ku sii beernay sun ilaheeda wabiyadeeda iyo meelaheeda waxbarasho dhan iyo meelaha makaanada ugu muhiimsan sida badaha iyo meelaha dhaqaalaha ka soo baxayo. haddana alaanka waxa uu yiri way sii tarmayaan way sii badanayaan wax dhibaatana alaanka kuma hayno markaas sida awgeed baan kugu leeyahay wadankii Ilaahay. horaa waxa loo yiri gaalku raali ka noqon maayo ilaa wax alle wuxuu doonayo aad u samayso. waxaad soo daawataa barnaamijka la dhaho la dagaalanka nuurka waxaad ka helaysaa YouTube-ka kaasaana ku faahfaahinaya sunta lagu beero Soomaaliya iyo khaniisnimada waxyaabaha ummadda la baayay waqti hore ilaa 40 sano ka hor 20 sano ka hor. inaguna maanta ayaynu hamabarnay oo aynu wax ogaanay in maanta weerar xun lagu hayo. haddaba weerarka sare muuqda iyo ka hoose waxa xun ka hoose aan lagu dareensiinin adduunka kaasuu maanta adeegsada. laakiin inagu waxaan u naqaanaa in dagaal ka fool la isula yimaado ka haddaba waxa adeegsan jiray dadkeenii hore magac iyo sharafta lahaa sida Cabdulla Xasan Siyaad Barre ragaas adeegsan jiray. laakiin maanta waqti lama marayo. maanta waxa la marayaa heer fikrada la isula dagaalamo baraha bulshada la isula dagaalamo si hoose. maanta adigoo bartada fadhiya ayaa wax kasta laga dhigi karaa haddii aad wax kasta hoggaansanto. haddaba walaalkayo iyo walaashay waxa laga yaabaa inaad yaabanto leedahay war meenan muslimiin ahayn war soo kii Ilaahay yiri wadii heelinaya maxaa dhacay. haddaba walaalkayo iyo walaashay Ilaahay uma heeyo qoom musan oo gaalada daba yaacaya. war haddaba gaaladan hoostay ka wada socdaan waayo maanta yaa gubanaya Falastiin baa gubanaysa, Afghanistan baa gubanaysa, Suuriya gubanaysa, Yemen baa gubanaysa, Soomaaliya gubanaysa. intaas oo dal oo aanan tirin karayn baa maanta ololeysa. haddaba ololista garmay ku bilaabantay ilaa waqti hore la soo gubayay intaaba waa la soo wadisay maalmid loo gubayay. gaalada hoostay ka wada socota intaaba inaguna colbayn wadanahay maanta. Sacuudiga ugu dhow oo Sacuudiga colkeena waa cadawgeena koowaad. haddaba lama soo sheegin ama lama soo warin waqti maanta ay ka hooseeyaan muslimiintu xagga diin ahaan iyo dhaqaal ahaanba waayo maanta xitaa xagga fikirka ayayba ka dhinteen oo maanta gaal bay daba yaacayaan madaxdoodii iyo minjahoodiiba. waxa la yiri gaalada ayaa waxay timid dhulka muslimiinta iyagoo ka qaadanaya ka baranaya cilmiga kadib cilmiga barteen 5 sano 6 sano cilmiga bay qaateen wadankoodii bay ku noqdeen kuwaasina waa Yahuudiga gaalada kale ogow. dadna cilmiga markay barteen cilmiga way u fiirsadeen way taqriiriyeen way sugeen cilmi baarid baanay ku sameeyeen kadib waxay doonayeen bay ka sameysteen wax aayad kasta iyo xadiis kasta way raaceen wayna tijaabiyeen. maanta waa kuwa inoogu faanaya in dhaqaalaha u gaarnay adduunka maanta anaga u tarina hadda diinteena bay qaateen ogow. hadda halka la fiiri diintii bay ku dhaqmeen sideedii bay ugu dhaqmeen
laakiinse cibaad ahaan way dhaqmine waxay ugu dhaqmeen wax kasta ay tilmaamaysay bay soo saareen. haddaba waxay isweydiinayeen sidee baynu ku noqon karnaa dowladdeena muslimiinta ahayd? waxaanu ku noqon karnaa inagoo diinteenna ku dhaqanna cadaaladda iyo wanaaggana isku maamulla madax iyo miinjaba. haddaba walaal waxaan kaa rajaynayaa inaad subscribe dad noo saaran aad noo saarto, like iyo share noogu dhufto, asxaabtan aad noogu sii shargarayso dhammaan, waayo waxa la isku caawiyaa khayr baa u wanaagsan. wassalaamu calaykum.